sagaashankii markii dowladdii burburtay oo dagaalada sokeeya bilowdeen ma jireen horta wax dagaalo sokeeya deegaanka ka dhacay ilaa taariikhdaas gadaal marka laga soo bilaabo dagaalo sokeeya oo maalin marlaba maalmooda waa jireen dhibka hayay wuxuu ahay burcad waxa la yidhaahdo ayaa hayay oo aad ugu fara badnay amba tuugada dadku u yaqaaniin ayaa ugu fara badnay dagaalada kale waxay ahayn dagaalo sokeeye oo gaagaaba xaf marna lagu maray oo dadka meelo badan haysto amba yani maaragtaa qaybta muqdisho dhinaceed amba baydhabo iyo dadka waxa dhacayay mar bayna mareen maalin laba maalmoodayna kala raacdeen waxaan haysana naga dhaceen horey nooga gudbeen muqdisho iyo dhulkaasay u gudbeen waa gartay dagaaladaas inta ka dhacay sidee qaabkee loo xaliyey maxaase ka soo baxay wixii dagaal idin maray lama rabo kuwa yaryarka ama burcad ha sababsho ama sababo kale ha u dhacaan deegaankan dadka deegan ka dhex dhaca sidee loo xaliyey qaabkee xalkooda dagaaladaas waxaa jira odayaalo dhaqameedyo badan iyo culumaatiin iyo ugaasyo iyo imaanyo ayay qabiilaadku qabaan dadkaas ayaa dhexgalay balsaanuna ma anfacdee waxa cadowga oo sukayna diraya aan iska qabanno ayaa lagu xaliyey dadkaas duubabka iyo ah ayaa dhexogtay oo kala noqday dadka kadibna waxaa anigoo saas ay nooga caddahay waxaa naga qabtay muuse suudiyaro xaaji muuse iyo kadibna waxaa anigoo saas ay nooga caddahay waxaa naga qabtay muuse suudiyaro xaaji muuse iyo nabadgelyada marka loo soo noqdo hadda midda taagan ka hor sidee maxaa dhibaatooyinkii nabadgelyo ee deegaankan uu soo maray sideese loo xaliyey hadda midda hadda aad ku sugantiin ka hor kuwii ka horreeya daabta aad nooga sheekeynaysa see markii nabadgelyo daradaas timaad see loo wajihi jiray amba beel kastaba waxaa u xidhneed cad yar ay leedahay anigaale ayaa u xidhneyd iyadaa amba dadka markaas ku dhacaysa amba waa laga saba gudbaa faataxada qur-aanka hana loo aqriyo aa la leeyahay si aan ugu gudubno meeshaas saas ayay cid walba meeshood ugu xidhneyd waa maxay qaab dhismeedka maamulka hadda ka jira degmada